waxay maamlaan ka petroleum macnaheedu waxay tahay South Sudan dhaqaalihiisa xooggiisa waxaa haya Soomaali marka haddii aan helo fursad marka aan u furo fursad Ethiopia uga furo Eritrea uga furo maxaan ku rahdaa South Sudan uga furo Sudan uga furo Uganda uga furo Soomaali ilaa DRC waa ka ganacsadaan Central Africa waa ka ganacsadaan ilaa maxaan ku rahdaa meesha West Africa waa ka ganacsadaan marka haddii si nidaamsan oo sharciyeysan oo xoolahooda iyo ganacsigooda iyo maalgashigooda lagu ilaalin karo oo sharciyeysan haddaan u sameyno annagaa guulaysanay xaqiiqatan bacdama dowladahaas dadkooda aysan ku fircoon dhanka ganacsiga siyaasad ahaan aysan furnayn annagu waa fiicsanna marka dadka ka hadlaaya yaa weyn runtii waa dadkii waxay agsanahay siyaasada ku fashilay ay yihiin oo dhaqanxumada siyaasadda horay Soomaaliya meesha ay taagan tahay oo dhibaatada runtii ku haya iyaga ka hadlaa inta noole lama xukumi karo dowladahaas oo waa la qabsanaya wargoomay Soomaali saan isu yidhi annagu Soomaaliya dad Soomaaliya dad intaas kale Soomaaliya ma dad hadda xorriyadda qaataan soo konton iyo lix sano Soomaaliya oo intaas oo milyan oo qof oo gudaha aaday oo ninka ka mid yihiin oo qof walba ka mid ah waxbartay oo intiiba badan ganacsata ku jira oo inta furan oo uga soo jeesaday sidee isku qabsadaa wax kala ma waxay rabaan inay Soomaali ku hayaan siyaasiyiinta dhaqanka maxamed xukumiga siyaasadda waxay rabaan Soomaali inay qabjab ku hayaan oo sidaas dowladda dhaqaalaha wax uga qabanayaan inay shacabka Soomaaliyeed lugaha uga qabtaan oo aysan dhaqaaqin xaqiiqatan dadka ganacsatada hal dalka isku filan waxay awoodaan inay ka ganacsadaan meel walba ay awoodaan ka ganacsadaan waa arkaan Kenya iyo Nairobi boqolkiiba 99 markaas Soomaaliya qorshe dowladda waa siisay may waxay ku gaareen kartidooda iyo midnimada iyo aqoontooda iyo riski takeridooda ay ku qaatay ay ku gaareen waxaan aaminsanahay marka dowlad ahaan haddaan fursadaan siino ganacsada Soomaaliyeed oo aan nahno Horn of Africa waa inay yeelato economic cooperation oo qofka Soomaaliyeed wax uu qaado aan laga caysuubin waxaan aaminsanahay inaan qabsanayno dhaqaale ahaan gobolka inaan qabsanayno laakiin dadka waa ummadda Soomaaliyeed ee gudoomiyaan oo sida xog u fakaraya oo wax walba siyaasadeynaya runtii waa ayaan dardo aniga waxaan dadweyne u ahay oo i doorteen oo madaxweynahan ku doorteen inaan fursad walba oo maxaan ku rahdaa possible inaan idin keeno hadday tahay dowlad wanaag dowladda dhexdeeda ah hadday tahay maxaan ku rahaa shaqo abuuris ee waqti u sameeyo magaladeena hadday tahay maxaan ku rahdaa investment ama maalgashi haddaan keeni karno iyo haddii aan fursad ku samayn karno haddaan fursad ku samayn karno maxaan ku rahdaa ganacsada Soomaaliyeed inay meel walba oo Afrika ay ka ganacsadaan intaas waxaa dheer markii aan isla helay iskaashigaas dhaqaaleed Afrika waxaan raadin karnaa inaan North Africa ka ganacsano inaan ka ganacsano maxaa yidhaahdaa Middle East ka ganacsano meel walba aan ganacsada ka gaarayso taasna waa siyaasad cusub oo aan doonayno inaan ku hirgelino midda koowaad waa nabad in rijinka Horn of Africa uu nala noqdo oo faragelintii Soomaaliya lagu hayay oo sodonkiisa ku dambeeyey soo hagaajiyey oo naloo soo diraayo isbatoolayaal sirdoon ay talada Soomaaliyeed ee ka noqonaya inaysan dhicin kayfiyey inay Soomaaliya halkaydaa laga soo kaco oo keliya oo ah dowladda federaalka cidda la macaamilaysa Soomaaliya ilaa anagu markaan la macaamilayo iyaga ma aadno goboladooda ma aadno fikiradooda ma aadno
waxaan ka fuqnaa albaabka oo caasimada caasimada marka qofkii raba inuu nala macaamilo waa inuu muqdisho yimaado macnaheedu waxa weeye haddii soomaaliya qaranka laga soo weerari jiray inay dhamaatay weerarkii dibadda soomaaliya looga hayay oo aan isku fahno inaan wada noolaano inaan is ixtiraamno inaan iskaashano waxyaabaha aan kala bedelin karana aan kala bedelno iyadoo kusan tahay cilmi iyo maxaan ku idhaahdaa fikra iyo iyadoo kusan tahay inaan intaas weydaasano taas waa kii labaad gudaheeda laftigeeda inaan raadino bacdamaa qormadka banaanka looga imaanayo dhexdeena iyo soomaaliya nahay wax alla wixii dhexdeena ah inaan isku afgaano oo si hoosaa waxayna waxaysano oo ogolaan marnaba dadkii sheegaa inay noo yimaadaan ay noo noqdaan gaaratoor waxaan ogolaanay oo aan compromise garaynay qarannimadeedii marka ilaa meel walba adduunka markayso dhibaata ka jirta nooma yeertaan marka maxaa ugu yeeranaya anaga marka waxaan raba marka anaga inaan isdalabo inaan waxayna hoos u dhaqano oo aan ka heshiino wax walba dhexdeena ah sidii awalba soomaalida dhexdeenu ahaa ay u heshin jireen wax la wixii dhexdooda ahaa noloshii markii nabad aan hayno oo ganacsiga hoorka africa iyo africanka isku furmo oo maalgelintada soomaaliya timaado ganacsatadeedana lacaga badan ay ka keenaan waxay abuuraysaa shaqo abuur iyo keenaysaa in dhalinyarada inay shaqooyin helaan waxaan weydiisanaynaa marka wadamada talyaaniga oo kale ah iyo caalamka inay laga kaalmeeyaan dhanka farsamada oo aan samaysano small industries light industries oo dadkeena dhalinyarada sino farsamayaqaan aan ka dhigno dhinac walbaba si soomaaliya ay wax u produce-garayso ay wax u soo saarto maaha inaan china iyo adduunyada ka keeno dadkeenu inay abuuraan inay sameeyaan inay warshado yaya samaystaan oo anagu aan loo kalin aan wax produce-garayno si aan caalamka aan u geeno productigeena taas markaan sameyno oo aan sanayno nabadii noloshiina ku darno soomaaliya iyo soomaaliduba sharaf iyo lahaanaya laakiin inta dibadda looga imaanayo inta dadkeenu aysan dhaqaale iyo looga haysan sharafka raadin karno maxaa yeelay marka qofku uu helo sida sheegaa kusoo celcelinaya marka uu helo nabad yuu sharaf helaa saas darteed annaga waxaa kaga go-an dowlad ahaan waxaa kaga go-an inaan ka shaqeyno sidii xaaladda siyaasadda soomaaliya habka ugu yaqaanay aan loo geli lahayn qaab cusub oo ku dhisa saa loo sheegay dowlad wanaag oo dagaalka musuqmaasuqa iyo soomaaliya isku tashato oo aysan u yeeran dad shisheeya ee hawlahooda xawiyaan taasi runtii waa wax laga go-an waxayna firi marka intaan sheegay koob waxaa ka ah shabaab oo soto soomaaliya inay iska qasnaato si ay ugu dhexnoolaadaan waxaas qaali ka ah sidaa sheegay siyaasiyiin fashilmay oo ku shaqaysta qabiil ama qabiyaad ku shaqaysta waa xaqiiqa waxaa qaali ka ah haddaan ficno oo ano ka soo dhexlayna dowladnimada isla weyno dowlad shisheeyaa qaali ka ah inaan saas ahaano maxaa yeelay dadkan waa dad leh dadkeenu waa dad firfircoon marka in la jiido soomaaliya oo dhibaato loo abuuro ee waxa weeye dadkan ay maslaxad u tahay saas darteed annagu doorashada ay doorateen ummadda soomaaliyeed waxaan doonaynaa jid cusub inaan ku falno wixii shalay aan naqaanay oo siyaasada ku naqaanayna inaan wax ka barno oo aynan dibna ugu noqon wixii ugu fashilmay oo aan jid cusub aan qaadno waxaan rabaa inaan idin sheego safarkeyga halkan aan ku yimid oo aan dowladda deegaaniga ah aan saaxiibka nahay aan uga helay martiqaadka inaan soo celiyo wixii taariikhiga ahaa oo labada dal ay ahaayeen waxaan la kulmay madaxweynahooda waxaan la kulmay baarlamankooda insha allah waxaan la kulmi doonaa baarlamaankooda madaxda baarlamaankooda kula ilaalo waxaana ka go-an inay soomaaliya xiriirkeedii ay soo celiyaan